waxay soo gaar wax yar ma aha waa filawaay igu dhacay wax aan filaneyn ama weligay Allah igu dhicin weligay Allah igu digay mar baaxin in qol igu xirtay oo qol igu xirtay intuu i waday oo 4 saacadood ah ugu xitaa oo waxaan igu dhicin korkayga ayna jirin wixii tarmuus yaala wixii koobab yaala wixii laptop ku jiray wixii oo dhan korkayga ay ku wada korkayga meel fiyo ma laha waxaan ku faraxsanahay walaalahayga i garab taagnaa oo hili hoob ila garab taagnaa ummadda Soomaaliland gabdhi iyo wiilal oo ka dhiidiyay oo ka xanaaqay oo garab taagnaa oo garabkayga taagnaa oo dhaawacayga ilaa maalinta ugu dhacay ilaa hadda ooynaayay aad iyo aad ugu faraxsanahay waxay soo gaar horta wax yar ma aha ilaa waxaan ku iri xataa intuu baatiga igu jeexay anoo qaawanaan ku dhahay oo quraaradaha galooyinka dhulka ku jaban oo ugu garaacay ceejo oo ugu qabtay oo aan isku kaadiyay oo raba nafta inuu iga qaado laakiin diidinka meesha shimbiruhu ugu tashanayeen soo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma joogin يعني ساسي نقطي نفتيدا iyo saacadeyda wax ka dhinay laakiin wax uu ii raabta malaha ceejada ugu dhagay ilaa hadda dhuntu way xanuunaysaa korkayga meel fiyo malaha dhalooyinka korkayga ku jijabay oo laga soo saaray isbitaalka iga soo saaray anyway meesha aniga maanta ugu dilay waa Soomaaliland waa wadan sharci leh waa wadan aniga aan ilaa maalinta aan fanka soo galay ilaa hadda aniga aan garab taagnaa oo aan aniga aan u heesay waa wadan aan deganaa oo wadan dalkayga sharci uu ka jira oo wadan sharci la'aan ma aha waa la xiray damiinada lagu soo daayay damiinada lagu soo daayana ma aha inuu fakaday ama oo baxay laakiin waxa si guriga ku jira maxkamaduna waa inoo socotaa ma aha midaana mid lagu kala hari doono Soomaaliland sharciga ka jiro waxaan intuu mahad celinaa askarta soo qabatay ii xirtay waxaan ugu mahad celinaa kuwa maxkamadda ilaa hadda feelkayga uu ku jiro ilaa hadda maxkamadda ay socoto waxaan ugu mahad celinaa dhamaan ummadda soo walaalahay ah ee garab taagnaa ummadda Soomaaliland oo garabkayga taagnaa kolba farxiifiska oo Soomaaliland nin xun oo ku daldalana qalbi midoo ku fakanaa ma aha waan isku naalnaa waxaan ugu dambeyntii dadkii ka warwarsanaa ee halkani inta badan ka warwarayay maxaa ay tahay fariinta u marinayso fariinta u marinaa waxay tahay aad iyo aad u maasiin walaalahay gabdho iyo wiilal dhamaantood sagalay garab taagnaa kuwa dibad ku maqan iyo kuwa dalka joogaba walaalahay aad iyo aad u maasiin iyo inta telefoonka igu soo wacday aad ugu mahad celinaya iyo inta i jeclado media iga baafinaysay aad ugu mahad celinaa intii walaalahay ii imaaday ama ila joogana aad iyo aad ugu mahad celinaa sharcigaana ku kala bixi doonaa waayo qof bila aadana adiga qof hadii inta qor soo cabaysto halkaas ka wad uftay kala dhacdo soo kugu mudufan aniga ilaahay xaqiisa ka badbaado maan xaqiisa kama badbaadin nafta inuu iga qaado rab ilaa aan isku kaadiyay ma fahamtay marka sharciga la tiigsanaa Soomaaliland waa wadan sharci ka jiro waana ku faraxsanahay inaan maanta joogo waxaan ugu dambeyntii imika xaaladda caafimaad waa sidee dareemaysaa farxiya xaaladda caafimaad hadda waa fiicanahay inkastoo adiga naag la jirdilay oo la garaacay yani naagta habo ma fahamtay alxamdulillah horta anigu waxaan ilaahay ku mahadinaa horta sagalay nafta hadayna iga dhicin oo maanta aan noolahay ya maanta aan noolahay oo ifka aan joogo wixii aan sheego macnaha ama aan gocdo waa dambi sharcigaas baan ku soconaanay laakiin asigu adduunka maanta maan joogayno tacsideeda joogi lahaa soo asigu rabay bal qof inta la waday inta la waday qol la geeyay ee lagu xirtay ilaahan kugu dhaashay ee furiin laga baxsaday ee waxaan ku dhahay 4 saacadood la garaacay bal adigu bal maanta maxay dareemi kartaa wadibaatada weyn waan ka xunnahay farxiya runtii wixii ku soo gaadhay ummadda muslimiinta ana inta badan soo weydiinaysay ama warkaaga sida weyn u wada sugaysayna waxa leenahay farxiya waa tan waana idin soo gudbisay sida wax u dhaceen iyo halka xaalku marayo iyo waliba xaaladeeda wixii dambe soo kordhana halkan aad kala socon doontaan insha Allah